مانكا وليغا وايل ما ويليس والله one day no Sakariya easy we are in front of the camera why you say I'm bolo bolo You are Somali is not that good. no you are not it is not I told you my Somali is not good You are speaking broken word. Islo imani. مجرى Inka wade kara. Sakariya what is always your problem have you understand your question this guy is always trying he tells Sakariya is doing it he eat too much You eat a lot. why I don't have to eat I do for my stomach huh This is a job. So okay I ask you only okay Adiat and you banish a beautiful goal fantastic yeah not last season only last 2 seasons and last season I kill him after the first season I give him the goal he came and told me that you are Walenta I tell him hey, no problem now you are together and when you face each other you punish It was a fantastic game alright because he did a lot of wonderful saves the only thing that I got him was I used my one salame and dana asabta Zakaria Ishaq channel ka maanta ani yo liba the captain Captain Smart Captain Lee yo mamanka karanka Somali national team and former player of Elman and hadda nadiga tikadawai so ani yo nakan mar hore we play against each other like hadda how team work belo so maanta we are going to talk about like our life about football about the game in Somalia and also inshallah so hadda ani af Somalia wafanti ani Somali jabjab waay hay lakin liban iyo mamanka waku hadlo Sufyan Somali wa translate for you okay ani ninkan turjuman wa lakin this turjuman bolo liban sodo waa dhawahay adeeda ma santiin saaxiibadan daawanayo Sakari iyo Cabdiraxmaan inta la joogo oo dabcan ciyaartooy ka dheelay horyaalka Soomaaliya Premier League dabcan waxaan ka wareysan doonaa ama weydiin doonaa su'aalaha ku saabsan horyaalka dabcan markay imaadeen horyaalka Soomaaliya ilaa hadda qabsigooda cimilada dabcan safarada kala duwan ee kooxahooda Cabdiraxmaan oo xul ka raacay marka Cabdiraxmaan soo dhaweynaa intaan su'aalaha ku bilaaban ay Cabdiraxmaan soo dhawo aad ma aqsantahay walaalkii Liban dhamaan asxaabta ku xiran channelka walaalkii Sakariya intaan salaamaya maanta waxaa martino Liban oo naga wareysan doono wax yariis ku saabsan nolosheena kubadda cagta dalka Soomaaliya waa mahadsantahay mar kale adii Sakariya aad iyo aad uga mahad celinaya labadiina yaa ku hormari doonaa su'aalaha marka ayda Sakariya oo maanka aad iyo aad horta sida wad ogtihiin ninkan Cabdiraxmaan Elman oo goolayo u ahaa dabcan hadda wax iska bedel magac Cabdiraxmaan Elman wali joogtaa soo ka tagtay Elman ma ka tagay waxa ka mid ah ciyaartooyda Naadiga Dekada Sports Club okay laba ciyaareen oo Dekada markaas aga fadhiso you are Dekada and he is Dekada together laakiin mar hore we play against each other aad iyo aad mar badan Sakariya last time I remember in last season you banish a beautiful goal fantastic yeah not last season only last 2 seasons and last season I kill him after the first season I give him the goal he came and told me that you are Walenta I tell him hey, no problem now you are together and when you face each other you punish it was a fantastic game alright because he did a lot of wonderful saves the only thing that I got him was I used my brain a little there because he never expected me to shoot okay dabcan marka Sakariya intaas noogu ekay Cabdiraxmaan kulankaas ka horan Sakariya iska hor imaadeen jawiga soo ahaa goolkaas uu ka dhaliyay haddana uu ku ag fadhiyaa halkana Sakariya ciyaaraan aad iyo fiican waaye markii oo garoonka lagu jiray garoonka banaankiisa markii gooreysa iska hor imaanay waxay ahayd mar aan Elman ku soo biiray oo asal Elman ka tagay marka ciyaartaasi ciyaartu gooreysa horyaalkeed 2020 kala tikooda dabcan soo hor u sheegay marka gool fiican uga dhaliyay daqiiqadaha ugu dambeysay 89 daqiiqo 87 daqiiqo amal ahayd
wuxuu helay anoo flat footed ka filanin in goolkaasi marka banoonigaasi inuu soo gamayo marka sidii uu gaaday sida goolkaasi niga dhashay aad iyo aad uga xumaa dabcan wuxuu u dabaaldegay si aan caadi ahayn sababtoo he didn't expect me. I studied him very well. Because the moment I chased the ball in front, he knew very well that I was going to cross. Okay. And I also saw him flat foot. I said, let me try him. Zakaria, let me ask you. You are a former player of Elman. You are from Elman. سي مدحيي وكان عيسى الكابيتانو وقاد عيسى دغدغا جيسو marka dhigay lama ka firto haduu gal waa kale kubada oo briska ma yeeshood جول جول سوبر جول جول حدي كلمبر كافري تبنات كوحده كبدا عيت ام سي سي اي سغاشن كيدو ان غارين 2 دقيقه كريا لا راعيي هوبريسكيري جول لما فلان ciyaaryahanka kabtanka ayaa kubadda luuqa soo dhigay luuqa kubadda loo soo dhigay jafay markaa ay runtii xabadu ku qaatay isagoo banaanku ka yimid isagoo la raacayo hobriska yiri bab super goal ciyaaryahanka lambarka 14aad kooxda kubadda cagta MCC ayaa sheekada markaa dhali markan waxaan nasiib u yeelatay in qaranka lagaga waco saasna aad yani hawshaada kubadda cagta waajibkaaga kusoo gudatid marka maalin isniin ciyaarnay isla isbuuca seed dhexdiisa qaranka laga wacdo inta dadsan jiraha صح marka safarkaygu ugu horeeyay qaranka ku bixi oo dalka Burundi ku ciyaarayna finalka Tanzania naga dhisay aad waa qaranka ugu horeeyay abaxdiina waa Cabdiraxmaan taas marka ka soo gudubno horta gadaal aan u noqono noloshaadii dhankaas iyo Kenya Cabdiraxmaan Kenya ku dhalatay صح Kenya kuma dhalan xamar ku dhalatay hadalkayga hor inaad saxdeed markaas aan ku dhahay xamar Soomaaliya ama geegeed kuma dhalan meeshii markaan xamar ku dhashay gaar ahaan xaafad warshadaha okay shirkula ku dhalatay waa hadda xaafadeedii waayaba طبعا Cabdiraxmaan shirkula ku dhalatay meeqa sano jirtay markii laga waday marka dalka marka ka bixina waxa jiray 3 sano waa too young gang صح 3 sano oo jira dalka ka baxnay Kenya tagni gaar ahaan Mombasa ka degnay halka Costiga aad iyo aad halka wax soo bartay dugsi sare ilaa dugsi primary level halka ka bilaabay noloshada banooniga halka boortirin ma waxa bilaabay 9 sano jiray 9 sano jiray 2010 goori boortiri agalo ilaa hadda waa kan meesha iska jeclaa aad iyo aad marka ku jiro goosha iyo marka meel banoonigi gacmo qabanaysa ma isku jeclaa aad iyo aad Zakaria when you are from Ghana to here what was the difference now you adapt here No, there's a lot of difference. Like muhim that I understand the philosophy of here. Because when I'm in Ghana, the philosophy we are playing or the weather there is almost similar here. Because the part of Ghana I'm coming from, the weather is almost similar to Somali. How the Somali طبعا like in another part is there all the time is too much raining. So because I was used to the weather like that in Ghana here, when I came it didn't take me long before I adapted the system. Even though my first season I struggled a lot, especially during training I had too much view and because المنتج واحد كدي 8 دقائق أما 5 دقائق أنا بيو كشوبة because too weather was too much cold. أنت let me see October or August September there about 2018 yeah up to now 18 19 20 21 22 23 you are here for 6 years yeah late now at that almost 5 years okay سنة كم متى شانسن okay لكن وإمانا من هو يعني first team that brought me here was Elman Sports Club okay in fact Tagarasha Elman they were so caring and I don't know how to use what is Somali caring in Somali sir and what the real yeah they give you warm welcome yeah Sidirane I still have that kind of attachment there. It's like my family now. Okay. But we are in business, so when you do business, sometimes you will go out of your family and come back. Inshallah, one day I will go back there before my
career. Yeah. Inshallah. لكن كدب Elman I went to play for Mogadishu City. And the fans of Mogadishu was more than amazing. They motivate us to play the game. Yeah. Sometimes you don't feel, especially the goal I scored my first season with MCC. The goal was scored by the motivation, the fans, the way they were shouting my name. I said, I have to do something for the fans. Yeah. It was an amazing season with them. And أدي أدو مثلا زكريا أنت أنا عبد الرحمن وجود now and at least you are 5 years here. Now you must of this language, Somali language, you know. وفهموا لكن أنا وقعت بروبلم لكن من كم بروبلم still somehow not دي ملهن مرة ما أنا وكشة Somali هو في عنا أنا أدي وكفي عنه ولكن لبدين أدي ما كفي عن من كم واي أوكي لكن أنا وكشة إبر أنا ذكر إن شاء الله ديار واي لكن مرة البحدا أنا عبد الرحمن وكهذا هي ذكر أصبر برا أوكي ديار مرة البحدا كبر لكن هذا إيش أصبر anyway أساق بري دونه لكن أنا هاي لبا حبه لبا إري هاي if you say you have reward I will give you and أنا ask him also okay and Zakaria you have now you can speak Somali وحير okay جب واي okay وحاربة إن دهديت وأن عذينا وعن عديانيا repeat وعن عديانيا no وان عديانيا وعن عديانيا you are small yeah you are close to bro your Somali is very bad no more discourage no don't disappoint your Somali is bad no you are good no you are good you are not speaking well our language. Why? You are saying words with different meaning. No. He's right. You are right. I am the one who asked you. This guy big problem. No. I am the one who. Okay. And Abdurrahman. And one. You say one close to the one Adiyaniya. No, you are close to. 80% you close to. 80%. Okay, you will give me 80% of the reward. No. You either you complete or No. It's still some. Even we can back. Okay. Also allowing Zakaria and let me goes to Manka. Waliga wayil mama welise. Wallahi one day No, Zakaria, easy. We are in front of the camera. Why you say I'm bolo? Your Somali is not that good. No, you are not. It is not. I told you my Somali is not good. You are speaking broken. He has the blood. He is going to defend his language, Somali language. He's defend now. Bro, speak proper Somali or leave it. Okay, that's it. Very simple. But he's going to learn. Give him time to learn. Yeah. Give me time. Already I know Barawa. Okay, let's continue our interview and okay. Manka, waliga wayil mama welise. Waliga wayil mama welise. Okay. Say waliga ma we no wawalise. Okay. No. This question goes to Manka. Okay, continue. Waliga wayil ma welise. Waliga wayil ma welise. Somehow. Say waliga wayil ma walise. وصل عندنا طبعا سؤالها سونيا وقتيga أنا كلها أويس عبد الرحمن Soomaaliya ay maaday dabcan waa la qabsatay xulka qaranka baxday qaranka marka baxday marka wax la cajabto la kulanta ma jirtaa safarka ugu hore qaran baxay waxa ay dalka Burundi so under 17 meesha ku ciyaarayeen aliyat weather ka meesha very different zaid cimilada xagga iyo inta isku mid ma sababta Burundi waxa waaye wadan waa si wada boor kaliya marka qabowga iyo roobka ku badan zaid way kana ku yaryahay
dabcan waddankaas iyo tartanka markaa meesha isku ciyaareen waxaa meesha uga jeclaada waxaa waaye taageeraha dalkaas siina soo dhaweeyeen oo isla Burundiga u dhashay Burundiyeska u dhashay okay waxaa dareenay inaan waddankeen hooyo joogno oo kale sababtoo ay gacmo furan inagu soo dhaweeyeen dabcan wayna taageerayeen baro hadda ku dhaw Liban kulmaha ciyaareen 5 kulan meesha ku ciyaarnay hal kulan bis la taageeray 5 games yeah he believe 5 games in Burundi. Speak English. You didn't speak your Somali very well now. You said no, he speak. I understand already. Shankulan. You say Shankulan. Yeah. Shankulan is it chocolate? Shankulan. Shankulan. Yeah, means 5 games. 5 games. Yeah. Shankulan. Yeah. And he's saying Shankulan. He's talking about in Burundi about national team. I know he's talking about national team, like he said Shankulan. Stop ruining my interview. What is Shankulan? Stop ruining my interview. He's not saying Shankulet. He says Shankulan. I'm better than For that one, anali warisan. Don't interrupt, eh? So marka xag shan kulan oo ku ciyaarnay Okay. ku sheegay hal kulan bis la taageero la'aan ahayn marka kulankaas aytan waxa u bixin Burundi laftirkooda u bixin kulankaas ibir ku dhammaan dabcan maadaama idin garab taagnaayeen markaan xulkooda dhiilayo xulkooda ciyaarayo saasa taageero la'aan ku hayn laakiin waxa meesha soo wajaclaad aan weligay ku iloobi doonin dalkaas waxa waaye gacmaha furan iyo qalbi wanaag ay ku soo dhaweeyeen aad laakiin markii ay noqoto in idin soo dhaweeyaan haddana ay idin taageeraan taageerayaasha Soomaalida ka waran ay kana kaantooda ma ka soo baxeen bro waddanka Soomaali kuma badna okay laakiin ma dareemin cidlo sababtoo ay ka waxay inuu taageeraan sida inay Soomaalida inay kala meeshii joogaan dadka inay ku dhex jirnaa aad hal kulana cidlo dareena ma laha si fiican ciyaar fiican soo bandhignay garoonka heer waxa la gaaray ila banaanka istaago okay oo buuxsamo waa gartay marka laga imaado taas sheekada la yaab leh kugu qabsatay wali xulka inta ku jirta ugu dambeyn barnaamijkeena soo gabagabeynayna balse hal mar waxaan siin doonaa Sakri iyo Imaanka anoo Sakri ka hormarayo Sakri would give one advice to the young generation who is going to develop their football skills. You are gabgabing. Football is all about discipline. وأخلاق الناس كدير. Discipline. أديات. Focus on training. أنا دل بدن سميسي. I think the most important thing is. And only tell us the real number when you come here since 2018 up to now. 20 goals. 20 goals. You are defender and 11 goals within 5 seasons. 4 seasons. 4 seasons. 4. That's good now. Okay. Because I scored 9 goals in Premier League and 2 goals in Engineer Iriso. Okay. Engineer Iriso? General Dawali assisted. Okay. And Abdurrahman, ciyaaryahankii kugu adkaa inta ku qabtay goosh kugu imaaday adoo kaliya saasas ku dhahay ka dhaliyo ma jira wali gambiyo real kama jiro ma jira in lagu gambiyo gambiyo liga dhaliyo aad goolka ugu qurxoonaa laga dhaliyay season ka dhalmaana badbaado laga dhaliyaa okay badbaado ciyaar ka mid ah badbaado boos qaldana taagnay kisayo xasameynay ana booskii ka maqan oo dhaxal ka soo dhameeyay okay ciyaaraankaas magaciisa ma xasuusan kartaa lambarku watana 27 oo badbaadiya طبعا انه داود دونا رجينا عبد الرحمن قول كو هذاك اللي مركا اي سكريه هو now you play in right back of defender دافع مديك اديشا مديك يو بديك طبعا اوكي you can play in 2 or 3 so عيارينك هو ادكا اوجهده هو هادست تافس سوبر yeah I think it's فرحان دغو أنا ساعد كيف يعني ولكن الجيم too much دلال ده واس ما تروح ولا سقفنا because he's running too much yeah I always want to track him okay أرد كاس أمريكا أدياد مركا عبد الرحمن كسون قني عبد الرحمن عياريان كاس لهذا هاي مركا وفعنا كسو قرب عيارته كواس لهذا أنت كرون سو كسو جرت هل نادي كود عيارنا وفعنا طبعا انك وفعنا قرونا قش مركا عبد الرحمن اني هاسي كرامات شيني ماتشيني وحول عيارني انه طبعا برو وحاواي one hell of a player okay control كيسا finishing كيسا ادي
wakreedkiisa wuxuu garoonka ka qabanayo muuqataa aad iyo aad That Mahasini is another level. one hell of a player Before you realize, you can see him here. Before you realize, he's another side. Very fast and yeah one of the best players. yeah you know he's work okay Zakaria and waxaan ku weydiinaa who is the fashionable man that you play with one team best dresser yeah labiska ugu fiican ha ciyaaryahanka isleedahay maanta dhan waa islabisaa waa isqurxinaa Anwar Shakunda, only one person. yeah Anwar Shakunda. Anwar Shakunda. he likes dressing He likes fashion. fashion Anwar okay Shakunda. aad iyo aad When I was Elman, Anwar Shakunda. when MCC Santos aad iyo aad Zakaria barnaamijkan gabagabo maraya Zakaria ma hadee markaan maankay maraya maanka ciyaaraanka ugu dhuunisanaya ku tiim noqoteen ciyaaraanka ugu dhuunisan dhuuniya bado saaid cunaayo ma ciyaartooy hadaan aan kulligeen waa cunto jecelnahay sax waa laakiin waa la kala daran yahay nin waxaa jiro adiga tusaalaan 3 qof aan saxan ku cunaysiin ama 2 qof laakiin qof waxaa jira saxankaas kaligiis aan lagu imaaneen that is football. So if we want to develop, and that is how we are going to start. Tartib. I know it will be difficult because the young guys, almost all of them, they are always hanak in the game. yeah But tartib, the main thing is you have to be disciplined. inaad dabca aad deganaatid oo disciplineka Coach in training, no matter how small or big he is, if you respect him, you are going to go far. yeah insha Allah inaad horumar badan sameyn doontid markaan Cabdiraxmaan ay noqon hay Cabdiraxmaan dhalinyarada bal halta la si ay kubadda cagta horumariyaan dhalinyarada kubadda cagta jeclaan waxaa dhihi karaa soo saaxiibka Zakaria sheegay kubadda waxaa waaye akhlaaqdaada hadday xun tahay ciyaaryahan kasta saartid u fiicnaa qofku rabta ma laha qofku la shaqaynaysa ma laha sababta akhlaaqdaada xun laakiin akhlaaqdaada fiicnaato kubaddaada fiicnaato waxaa noqonaya ciyaaryahan aad la xushmeynaa aad la jeclaanaya inta kalena ugu muhiimsan waxaa sheegi kara waxaa dhalinyaradan hadda soo baxayaan banooni keligiis wuxuu ku taraaya ma laha make sure inaa waxbarashadaada ku dadaalaysid haddaa dugsi hoose dhiganaysid dugsi sare heer jaamacad sababtoo banooni waqti koobana la ciyaarayo aad iyo aad sax 30 sano 35 sano wixii ka dambeeya waa mustaqbal iyo waxaan la sugaayay dabcan marka haddaa badana sidii awoyaashan iyo abayaashan samay jireen banooni la ciyaarayna haddana wixii ahaaya macno leh ma laha si dadka naga waaweynaa dadka naga soo horeeyaan aad iyo aad waxbarashada wax muhiim waaye marka waxbarashada ku dadaal kaliya routine noloshaada dambe ee u qorxoonaato ما شاء الله aad iyo aad Cabdiraxmaan iyo Zakaria aad iyo aad mahadsan yihiin dabcan sidoo Cabdiraxmaan idin sheegay kubadda cagta kaliya ayaan focuska la saarin sidoo kale waxbarashada iyo nolosha asaasigeedana dabcan la iska diyaariyo waxayna ka sameeyeen yihiin Zakaria dabcan Cabdiraxmaan in oo akhlaaqda lagu dadaalo anigana hal mid aan ku darsan oo ah waxaa jiro ciyaaryahan la dhaho Eden Hazard oo u ciyaari jiray Chelsea haddana ka tirsan Real Madrid wuxuu sameeyay jiray dabcan training markii la imaado wuxuu ahaa lazy dabcan training fiican ma sameeyay jirin laakiin markii game-ka imaado wuxuu ahaa ciyaaryahanka ugu muuqdo ama dabcan garoonka saameynta ugu badan ka sameeyo marka ciyaartooydan wuxuu dhihi jiray markuu man of the match qaato tababara ma toor isku daalinaysan oo anagana waa kana sameys marka waxa ugu muhiimsan aniga marka aan sii dhiirigelina ama aan isku sii adkeenayo waxay tahay in aad akhlaaq yeelatid akhlaaqda waxa ugu muhiimsan waa marka diinteena waa laga hadlay xadiis badan oo ku sugnaaday marka in all intaas ku soo gabagabeynayna muuqaalkeena maanta see you next inshallah goodbye Subscribe, like, comment, and share. Hadiyad